بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله waxaan halkan jeclahay inaan salaan iyo baaq aan uga diro dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Jubbaland waxaan ku sugnahay magaalada Kismaayo oo aan soo gaaray saaka abaaro 11kii ujeedada safarkayguna waxay ku aadanayd inaan helo dokumentiyadii ama waxyaabaha hordhaca u ah kursigii 072 oo aan u tartamayay isla markaan soo gaadhay magaalada Kismaayo isla markiiba waxaan abaaray meeshii maxaan ku idhaahdaa loo madlay ama loo asteeyay in laga qaato warqadihii amniga markii aan meeshii gaadhayna waxaa la ii sheegay inaan wax warqada la isiin doonin hay-adihii amniga waxaan la sameeyey xidhiidh waxaan la hadlay ninka ugu sarreeya waxaan u sheegay inaan doonaya inaan kursigaa u tartamo maalinta berri doorashadiisu dhici doonto waxaana ay ka gaabsadeen in warqadaas la isiiyo sidoo kale waxaan mar labaad abaaray aan aaday meeshii lagu gundoonsiinayay shahaadooyinka dadka u tartamaya muxuu ahaa kursigaas iyagana sidoo kale waxaan ka codsaday ana u sheegay inaan u tartamo inaan candidate u ahay kursigaas waxaana ka codsaday in warqadihii shahaadadii aan ku tartami lahaa aan ka helo nasiib darro sidoo kale waxay ku adkaysteen in aan keeno warqadihii amniga sidaa darteedna aysan ogolaanayn inay wax warqad ah oo maxaan ku shahaado aynay siinaynin ilaa iyo inaan warqadda amniga la imaado mooyaane xaaladdu hadda halkaasay maraysaa taa ka sokow odayaal la yidhi waa odayaal nabadoonno ah oo waxba ka jirin oo intooda badan boqolkii 80 fayg ah ayaa magacyadooda lagu shaaciya baraha bulshada oo la leeyahay waa odayaasha soo xulaya ergada beesha maxaan ku dhahdaa maqaabul khaasatan kursiga 72 odayaashii saxda ahaa oo beesha nabadoonnada u ahaa oo hormuudka u ahaa oo hoggaanka u ahaa maxaan ku dhahdaa way joogaan wax erga ah oo maxaan ku dhahdaa ama la weydiiyay inay soo qoraan ama ay iyagu hadda soo qoreen oo cidnaba u gudbiyeenna maaragtay ma jiro go'aankooduna waxaa weeye wax kastoo meeshaa ka soo baxa inaynan shaqo ku lahayn inaynan qayb ka ahayn inaysan dooran inuusan u dooranayn qofkii halkaa ka soo baxa bulshada maqaabul oo iskale kursiga eber 72 go-aanka kama dambaysta oo ay qaateen oo dabcan iyaguna ay fariintaa gaarsiin doonaan dadka reer Jubbaland iyo maxaan ku dhahdaa caalamkaba waxaa weeye kursigaas in la kufsaday wixii meesha ka soo baxana aysan haba yaraatee wax shaqo aysan ku lahayn waxaan halkan rabaa inaan message ama fariin aan ka gaarsiiyo dadka ama maxaan ku dhahdaa beesha iskale kursigaas meel kastoo ay joogaan inay ogaadaan kursigii ay iyagu lahaayeen xaaladiisu inay halkaa marayso waxaa jiri doona oo aan maxaan ku dhahaa sii wadi doonaa dadaalka aan ugu jirno ama aan ku baadigoobayno sidii xal waara arrintaas looga gaari lahaa kamana hadhi doono ilaa iyo meesha ugu dambaysa kursigaasu inuu sida hadda la moodayo inuu noqdo marnaba kama istaagi doono ama kama daali doono inaanu maxaan ku dhahdaa meesha ugu dambaysa inaanu dadka waxaa samaynaya inaanu la gaadhno annagoo kaashanayna odayaasha annagoo kaashanayna siyaasiyiinta kursigaa u tartamayay annagoo kaashanayna cid kastoo Soomaaliyeed oo waxgarada arrintaasuna waxaa weeye galabta iyo wixii ka dambeeyay bilaaban doontaa wayna socon doontaa waxyaabaha kale oo aan raba inaan hoosta ka xariiqo waxaa weeye ninka hadda meeshan ku amarku taaglaynaya Axmed Madoobe waxa weeye warkiisu hadda ma bilaabanin oo maalmahanba maxaan ku idhaahdaa qorshahan
hadda beesha maqaabil ku sameeyey wax soo jiitamay oo jiray buu ahaa mana ahaba hadda kaliya doorashada wax muddo soo jiray buu ahaa tacadiga iyo maxaan ku dhahdaa pressureka dadka lagu hayo iyo siday mar walba xuquuqdoodii aasaasiga ahayd maxaan ku dhahdaa ay u waayeen ama ay maxaan ku dhahdaa loo caburinayo wax hadda bilowday maartay maaha aniga waxaan rabaa inaan maartay dadka Soomaaliyeed u sheego in kursiga hadda beesha maqaabul Axmed uu qof beeshii aysan doonin uu siiyay taa macnaheedu inay ka dhigan tahay inuu isagu shakhsiyan kursigiisii bixiyay marka waxaan aniga hadda kursi aan u tartamayay runtii ma aha waxa aan waayay waxa hadda wax waayay oo kursigiisii dhumiyay waa Axmed Madoobe weeye waxaan idin xaqiijinayaa haddii alla yiraahdo ilaahay nafta noo daayo sida ugu dhaqsaha badan inaan u muujino dareenkayaga iyo ficilkayaga arrintaas ku aadan inaan u muujino waxaan rajaynayaa dadka reer Jubbaland oo dhammaantood dareenkaas ila qaba ama ila wadaagaya iyaguna inay ku soo biiri doonaan dhaqdhaqaaqaas aan anigu hogaaminayo oo aan maxaan ku idhaahdaa ku doonayno ama ku baarigoobayno in Jubbaland loo helo hoggaan iyo nidaam sax ah oo ay dadku iyagu ay leeyihiin oo iyagu ay soo doorteen oo iyagu ay ku qanacsan yihiin kaasoo anigu shakhsiyan aan hormuud aan ka noqon doono haddii la yiraahdo marka midda kale waxaan rabaa inaan dadka reer Jubbaland ugu baaqo war dulinimadu waxa weeye qofka bini aadamku haddii isagu qaayibo oo isagu isu quudo cid bini aadam oo ka qaadi kartaa ma jiro ma dhihi karo ilaahay xataa kama qaadayo laakiin qofku isaga horta marka hore la rabaa inuu muxuu ahaa isxilqaamo inuu ka gilgisho inuu diido dulliga iyo maxaan ku dhahdaa dacatiga maxaan ku dhahdaa lagu hayo qofka bini aadamka cidi ma rarato ilaa isagu uu hanqaloocsado war dadka reer Jubbaland waxaan leeyahay hanqaloocsiga aad hanqaloocsanaysaan oo korkiina la saarayo jawaanada ciida maxaan ku dhahdaa waxaad kaliya kaga badbaadi kartaan ama aad kaga baaqsan kartaan waxa weeye inaad madaxiina toosisaan war madaxiina toosiyo oo waxa weeye waxa idinka maxaan ku dhahdaa aad u baahan tihiin oo ah inaad maaragtay hoggaankiina iyo maamulkiina inaad idinku doorataan cidna ha ugu aabayeelina cidna ha ku daba istaagina soo baxa oo maxaan ku dhahdaa banaanka u soo baxa oo maxaan ku dhahdaa dhaqdhaqaaqan iyo dareenkan maxaan ku lagu xaqiijinayo dadku inay xuquuqdooda helaan waxaan idin leeyahay taageera oo u istaaga maalin nin la xidhay iyo nin la bureeyay iyo nin maxaan ku dhahdaa jidhka waxa soo gaadhay wax badani maaragtay qofka maba gaadhsiiyaan waxa qofka bini aadamka gaadha waxa ugu xun waxa weeye waa damiirka weeye waa damiirka oo qofku ka dhinto waa dareenka oo qofku ka dhinto waxa hadda meesha yaalana waxa weeye reer Jubbaland inay damiirkii iyo dareenkii ka sii dhimanayaan inay sii dhuminayaan wixii bini aadamnimadii maxaan ku dhahdaa inay sii dhuminayaan ayaa maarta muuqata xaaladda dabadooda la qabtaa anigu waxaan qabaa in maxaan ku dhahdaa ifafaalaha ii muuqda uu muujinayo in haddii loo adkaysto ama lagu sii jiro marxaladan waxa ka dhalan karaa inuu noqon doono maxaa layga soo heli bariba waan habaabi oo ay ka dhigan tahay marxaladihii Jubbaland soo martay oo rag fara badan oo marar badan ku naalooday inay maalmo xukumaan Kismaayo ka bacdina markii ugu dambeysay xaaladoodii wixii ay ku dambeysay aanu isla wada garanayno inay ku dambeyn doonto hadaynaan maanta ka hortagin marxaladaas inoo wada muuqata ninbaa waxaa laga sheegay magaalo hal foolanaysaban garan jiray ma magaalo foolanaysaan garan waayey marxaladda maanta Jubbaland ay ku jirto oo ay ku sugan tahay waa mid u baahan hiil waa mid u baahan waa mid u baahan in loo istaago waa mid u baahan in loo midoobo reer Jubbaland khaasatan waxaan leeyahay aniga beesha aan ka soo jeedo ee kumade waxaan ugu baaqayaa
war waxa weeye marxaladda maanta aan ku jirna haddii aynaan wax ka qaban war waxaan idiin sheegayaa meel fog inaynu ka baadigoobi doono wartanoo kale waa ina soo martay waana eednay wartanoo kale waa beelaha kale Soomaaliyeed walaalaheena waa soo martay hoggaan noocaas oo kale waa soo mareen war waa eedeen war waxaan ku yiraahdaa wartaladii baaday soo marun talo kuma korodho war miyeenan wax ka baranaynin wixii soo dhacay ee aynu marxaatiga dhamaanteen u ahayn ee Jubbaland maxaan ku yiraahdaa soo maray miyaysan 10 inoo noqonayn miyeenan wax ka baranayn miyeenan maxaan ku yiraahdaa dareenkeena iyo xusuusteena miyaysan ahayn arrin ku weyn oo u baahan inaynu maanta kaga hortagno inay wixii oo kale ay dhacaan aniga waxay ila tahay beelaha reer Jubbaland daga maxaan ku yiraahdaa Jubbaland inay dhamaantood isu yimaadaan inay midoobaan inay hoggaankooda iyo maxaan ku yiraahdaa madaxdooda oo ayagu ay ku kalsoon yihiin inay maxaan ku yiraahdaa u istaagaan sidii ay u dooran lahaayeen hadday taasu dhici weydo waxa ay horseedi doontaa marxaladda hadda lagu jiro in waxa la yiraahdaa habar karis xun iyadana kaalkula in cid waliba ay wax